وزير خديجة. فخامة الرئيس، دولة الرئيس، نائب دولة الرئيس مع الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta aaday farxad weyn noogu tahay xusuusna waadna gelisay hadday faqaamat ra'iis dulmar yaraan ku sameeyo kadibna aan u soo dego shaqadeenna waqtigaas waxaan rabaa wax yar inaan madaxweynaha jamhuuriyadda ka tilmaamo maalin ayaa 150 xildhibaan xilligii ra'iisul wasaaraha uu ahaa meel fadhida ayaa waxay u soo dirsadeen 30 xildhibaan oo ka mid ah arrimaha jiray markaa madaxweynaha inaan aragnaan rabnaa ra'iisul wasaarihii inaan aragnaan rabnaa madaxweyne sheekh shariif ay markaa u tageen arrintii u sheegteen wuxuu dhahay ugu taga ra'iisul wasaaraha oo markaas ahaa madaxweynaha hadda na hor fadhiya ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay leeyihiin arrin baa kala daadanaysa qorshahan haddaan la samayn cirka iyo dhulkaa soo dhacay waa loo yimid subaxii habeenkii markii madaxweynaha ka soo tageen ugu sheegeen berri aan isla quraacanaynaa shirki golaha wasiiradaa jiray quraacdii ay u yimaadeen 30kii xildhibaan arrintii u soo bandhigeen qorshahaasna waxaa lagu fulin karaa lacag 300 oo kun ra'iisul wasaaruhu markaas kursigu ka istaagay wuxuu yiri oo ciidankiis goorma mishaar siina haddaan 300 kun oo dollar aan hadda idin siiyo mooshinna iyo waxbaa lagu kala furfuraayay waxyaabaha hadda ka hor aan sheegay ahayd isagana waa og yahay xildhibaano fara badan hadda waa ku jiraan mas'uuliyiin kale dalka waa joogaan kuwa kale bannaankay joogaan gudaha iyo dibadna kolley meesha waa la iska dhigi doonaa haddii shirki golay wasiirada aan imid saaxiibaday bannaankay dhooban yihiin waxay leeyihiin war waxa aan u keennay 3 milyan haddii lagu bixinayo inuu sameeyay ahayd haddii kale ninkan meesha ma joogaayo ma baxayno ma dhaqaaqayno adaan ku sugaynaa shirka gala soo dhammayso oo aniga hadday sugaysaan isagii haddaa aragteen maxaan ku samayn karaa albaabkii haddaan u soo baxay mise waa taagan yihiin waa meesha guriga hadda ra'iisul wasaaraha degan yahay bannaankiisa waa ku noqday waxaan ku yidhi arrintaa wax ma is aragteen sidaasaan ku dhahay madaxa uu qabsaday iyagii waxaan ku yidhi saaxiibayaalow raalli ahaada bil kama soo wareegan markii uu baxay ciidankiina mishaar la'aantaasaa ku sii dhacday oo sidii la ahaan jiraa lagu noqday waa marka faqaamat ra'iis markii Soomaaliya lagu doortay madaxweyne systemka parliamentariga aan ku jirno waxaad la timid qorshe cad oo aad dalkan ku hogaaminayso qorshahaas kalsoonida lagu siiyay kadibna sida awoodda dastuuriga aad leedahay in aad ra'iisul wasaare u soo magacaawdo si xukuumad uu u soo dhiso barnaamijkaas lagu shaqeeyo waa markii ugu horeysay ay si sax ah u dhacday aan qabaa xukuumada kala duwan aan soo maray ra'iisul wasaare ku shaqeeya qorshihii madaxweynihiisa oo ka dhiga barnaamijka xukuumaddiisa una soo xushay wiilasha iyo gabdhaha hadda hortaada fadhiya in ay la qabtaan taasaa marka ah barnaamijka ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo ka yimid qorshihii aragtidaadii adiga Soomaaliya aad ugu talagashay barnaamijkaas ra'iisul wasaaraha ayaana wasaarad qorshe howleedkeeda uu ku salaysan yahay iyada ayuu ka soo dhex baxay inta aan 4 todobood la gaarin 10 qodob oo waaweyn ayaa lagu soo koobay kadibna markii la sii daadajiyeyna 4taas todobood oo hadda lagu fasiray ayay timid lagama shaqayn karin haddii uusan ra'iisul wasaaruhu nagu hogaamiyeen aniga waxaan si gaar ah ugu jiraa guddiyo kale oo ka mid ahna waa jiraan laakiin wasaaradda dhalinyarada isboortiga guddiga arrimaha bulshada iyo guddiga dhaqaalaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka guddoomiye siyaasadda loo dhan yahay iyo amnigana waxaa hogaamiyey ra'iisul wasaaraha faqaamat ra'iis maalmahan guddiga arrimaha bulshada waa la kor taagan yahay waayo waxay ka gaabiyeen tubihii kale annaga dhan marka haddii dhaqamadii iyo wixii dalka soo ragaadiyey aad walwal ka qabtay waad
dalka barnaamijkaaga iyo aragtidaada iyo qorshahaaga ka fulin lahaa sababta taas aan u leeyahay ilaahay baa ku waafajiyey allah subxaanahu wa tacaala ayaana iskale waafajinta inuu ku waafajiyo waayo qorshaha dalka asagoo qabyaa aad kala tagtaad kula soo noqotay meelaha aan isleeyahay khilaaf la'aanta waa ka timidna waaye aragaad u ahayd waayo xanuun qorshe dhab ah oo dalkan aad ka bixin lahayd ayaa dhexda laga qabtay ra'iisul wasaarahana iskuma warseeganinoo nabadoonu wax badan ka ahaan jiray ra'iisul wasaarayaashii saddexda ahaa oo madaxweyne kasta soo maray marka waad ku tashateen inaan waxa idin soo dhaafin annagana waan idinkula shaqaynay golayaashii la kala juqajuqayn jirayna sidaasay meesha uga baxeen mooshinada la sheegaayo golayaashu ma keeni jirine xafiisyada madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ka imaan jirtay mar haddaa idintan dhexdiinna doole furdug cidii soo ma geli karto waa ku faraxsanahay taasaa keentay marka mudane madaxweyne waxaad ku ammaanan tahay oo aad ku dhiiratay adduunka hore u maray lagama helo inaad tiraahdo meel fagaaro ah barnaamijkii 100 maalmood Soomaaliya aad kala hadasho gudo iyo dibad inaad tiraahdo ra'iisul wasaare aniga iga fiican aan idin keen asna wuxuu idin keenay golo wasiir ka fiican taasaa keentay marka in laga wada dhabeeyo oo aan qorshahaas ku shaqayno waad ogtahay ra'iisul wasaarayaashii madaxweynayaashii hore dana gaara la isku qabsan jiray ma dafirayno waxaa kaloo xigay qorshayaal qaran ma jirin qorshayaashaas qaran maadaama aysan jirin 6 bilood markii la joogo kadib danahaasa iska hor imaan jira waaba haddii sanad la sii jiitamay ahaan jirta taasaa keentay marka in oo wax walba ay meesha ka baxaan maanta golaha wasiirada haddii mid baxay uu jirana kollay siibkaas hadda aad tiri looma dulqaadanayo qalad iyo marab baa lagu baxay haddii aan ku adkaysanno wixii aan hadda soo wadnayna waan ku sii wada shaqayn doonnaa haddii nafta la qabo oo ilaahay dadkiisa uu u dhaafo ruuxda boqolka cisho kadib wixii ka dambeeyey qorshayaashaasaa lagu shaqeeyaa haddii wasaaraduhuna ay yihiin guddiyo golaha wasiirayaashii hore golayaashii wasiirada hore guddiyadan waa jiri jireen adaa ra'iisul wasaare ahayoo soo maray laakiin ma aysan shaqaynin laakiin guddiyadana waa guddiyo shaqeeya oo og wasaarad kasta qorshahaas barnaamijka xukuumadda oo ka yimid aragtidaada dalkan aad ku timid ayaa lagu wada shaqeeyaa marka cidi kama leexan karto haddii madaxweyne ra'iisul wasaare qorshihiisa dhinac kale u leexin jiray waa fuliyey ra'iisul wasaaraha annagana waa qaynay waxaa intaas sii raaca qorshayaashaas iyo tubahaas hadda la ogyahay oo aan ku shaqaynay cid walba waa ogtahay meesha ay joogto waa ogtahay guddi kasta meesha uu ka dabacsan yahay waa ogtahay hadda la iima sheeginaa tiri laakiin waxaan hubaa marka arrimaha bulshada laga sheego percentage-kii 2017kii aan qabannay wuu jiraa waana lagu soo gudbin doonaa waa hubaa tubta siyaasadda loo dhan yahay iyo inuu ka jiro iyo tubahan kale ee dhaqaalaha iyo taasaa soo jeedisay indhaha beesha caalamka taasaa soo jeedisay indhaha shacabka Soomaaliyeed gudo iyo dibad oo waxyaabihii lagu marin habaabin jiray ay maanta u diidan yihiin dawladdaaduna ay u tahay dawladdii shacabka marka intaas isku soo daro faqaamat ra'iis guddiyadan arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda loo dhan yahay sida hadda aad nafartayna aan ku daris doono waa qorshayaasha wasaaradaha ay ku howlgalaan waa barnaamijka xukuumadda oo saxda ah taasaana ay ka dhalatay siyaasado iyo shuruuc fara badan oo dalka loo hirgeliyey oo u gudbay baarlamaanka iyo kuwa haddana hor yaalla oo aan dhammaystiri doonno haddii allaha awoodda la oggolaado 2020ka xukuumad 20 bilood jirta marka laga soo rabo doorashada madaxweynaha 19 bilood jirta bishaare ka weyn oo dadka Soomaaliyeed faqaamat ra'iis loo sheegi lahaa ma jirto inaysan hal shilnoo deyna lagu lahayn meesha 70 ilaa 80 malaayiin ah oo deyma ah oo aan dadna wax loogu qaban dawladna wax loogu qaban uu dalkani soo maray marka waa fursadda kaliya
iyo bishaarada keliya ee aan dalkeenna u sheegayno taas ayaana ah halku-dhagga xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre nabad iyo nolol haddii allah awoodda la oggolaado marka intaa laga soo tago annaga haddii aan habacsanaan ama howlahii wixii la bartay lagu shaqayn lahaa wuu diiday ra'iisul wasaaraha wuu nagu dul joogaa wuu nagula xisaabtamaa laga bilaabo sidii uu golaha wasiirada 30 jeer iyo ka badan uu ka sheegay subaxii xafiiskaygan ka bilaabaa wasaarad kastaana ku xigta xafiiskayga markaan ka bilaabdo ma jidkii horaan ku soconnaa mase jidkan oo aqaldamay maya jidkii hore oo naloo leexin jiray waa diidnay xafiiskiisa keliyana ma ahe wasaarad kasta haddii ay jid hore ku socon jirtay taasaa marka ka soo leexisay oo aan howlahan oo dhan lagu wadaa qorshayaashaasna haddii allaha awoodda la oggolaado qorshaha barnaamijka cad ee aad isxilqaan aad noogu dhiibtayna isagana ilaa 2020ka in dalkan laga hirgeliyo dib u dhis fiican dadkiisa iyo dawladdiisa oo dhan oo iswada weheshanayana ay sameeyaan xalay waxaan jiray aniga iyo guddoomiye yariisow telefishinka la dhaho universal dood wadaag barnaamij ah waxaan ka sheegnay waxaan dadka Soomaaliyeed ma oga in maalmaha soo socda wasaaradda warfaafinta ayaa golaha wasiirada looga xil saaray in tubahan ee qorshayaashan ayagoo tafaftiran looga gudbiyo si dadka Soomaaliyeed ay u ogaadaan in wax la qabtay iyo inaan wax la qabanin taasaa marka percentage-kaas kugu imaanaa adigana xafiiskaagana aad ka arkaysaa Soomaalina ay gudo iyo dibad maadaama aan nahay dawlad haysata telefishinka qaranka iyo idaacaddii qaranka kuwa kalena sidaasay ula wadaagi doonaan wax hoos ku jira oo tareen hoos lagu wadaayna ma aha already xalay waan sii sheegay haddii cajaladaas dib loogu noqdo waa laga arki doonaa waa diiday marka hagrasho iyo sidii in ra'iisul wasaaraha xukuumaddiisa ay ku dhaqan lagu dhaqo ama lagu wado wasiir kasta oo meeshaan fadhiyana wuxuu ballan qaaday inuu jid dheer iyo jid gaaban aan la mari doono inta la fulinayo qorshayaashaas oo aan daal iyo hagrasho lahayn haddii allah awoodda la oggolaado waxaan leeyahay mudane ra'iisul wasaare waxaan uga mahad celinaa golayaasha wasiirada dhaliilihii hore ay lahaayeen waxaa jiri jiray core ministers ama iyo non core wasiirro muhiima iyo kuwa aan muhiim ahayn wasaaradihiisoo dhan waa u wada muhiim shaqada waa u wada muhiim barnaamijyadiisa waa u wada muhiim annagana taasaan hortaada ra'iisul wasaaraha keentay inaan sidaas hagar la'aan oo sidii hore la yaqiinay aan ahayn mudane madaxweyne mar kale waxaan kaaga mahad celinaa qorshahaas dalka Soomaaliyeed inaad iskugu duubanteen in danta dalka iyo dadka wixii lagu doortay ah annagana aan ku dhaqanno nabad iyo nolol dalkana inuu nabad helo dadkiisana nolol horumarsan helaan wabilaahi tawfiiq mahadsanid wasiir Khadiija aad u mahadsan tahay